buuga bilowgiisii hore wuxuu baay qabay barashii awgeed yuu kaga bogtay buugan wuxuu ka kooban yahay yani sheekooyinkan waxay ku idil yihiin intaan ku kooban yihiin waa sheekooyin diiniya sheekooyin madadaala oo qosla ku jiro oo basla sheekooyin dhaqana ku jiro sheekooyin muusiga ku jiro af iyo garsoor buugan luqad Soomaaliyeed u hiiliyay dadka Soomaaliyeed u hiiliyay yani qofkii akhriya wuxuu la mid noqonayaa qof umrigiisa 100 sano ka weyn ayuu noqonayaa xaqiiqatan dadna akhriyaada hatta meel badan laga soo dalbado waa laga akhriyaa qofka akhriya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka weydii qoraaga ee aad kala socotaan warbaahinta deegaan codka geeska. barnaamijka waxaa maanta marti iigu ah Sheekh Daahir Axmed Jeyte oo ah suugaanyahan sheekh ahna qoraa. Sheekh Daahir ku soo dhawow warbaahinta deegaan iyo barnaamijka weydii qoraaga. bismillaahi raxmaani raxiim waa dhawahay walaal Cabdifataax aadan u dhawahay. buuggan hadda 100 xigmadood oo sheekooyin wada xigmad xambaarsan aan u jeedo xitaa dhinaca bogga dambe buugga aqoon-yahano badan ayaa faa'iidada iyo xigmadaha uu xambaarsan yahayba wax ka taabtay. ma buuggii kugu horeeyeyba mise buugaag kale ka horeeyeen? buuggani waa buuggii ugu horeeyey runtii laakiin laba buug kale gacanta ku hayaa jiro oo kan ka horeeyey markii aan u yeeray ragga odayaasha macallin Yuusuf aan la tashaday oo Cabdiqani ayay niyo waxaan ka codsanaynaa bal buugta kale oo aad qori doontaa insha Allah taala hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahay idinkiis laakiin kan waxaad ku dadaashaa inaad noo soo hormarisid oo wixii aad ka qaban kartid aad ka qabatid sidaas ayuu ku soo hormara buuggan waxa ka horeeyay laba buug kale oo hadda oo ku jira insha Allah taala goor uu soo bixi doona hadii Allah idmo. buuggan wuxuu calaamad cad oo na tusinayaa in aad tahay qof aad wax u aqriya marka aqrinta 100 sheeko iyo macnahooda iyo xigmadda ay xambaarsan yihiin in iyadoo qoran bulsho loo soo gudbiyo waxaa ka horeysa aqrin badan marka wax aqrinta iyo qoraalka ka baxsan oo hiwaayad kale oo aad waqtiyadaada faraaqaha aad gelisid ma jira aad samaysid? waxa way jirtaa runtii anigu suugaanta waa gabayda aad aan u dhageystaa waa gabayda waxaan dhageysto waaye sheekooyinka dadka oo odayaashana waan dhageystaa sheekooyinka la duwan waan dhageystaa akhrintana waxa waaye waxa la qofka bani aadamka noloshiisa qofka oo rabo inuu yani horumar sameeyo markasta inuu wax akhriyo waxay ku mid tahay jadwalkiisa inay ku jirto waa yani dadka aad wax u akhriyo waan ku jiraa oo hadda koor baan sheegay yani meel badan ka sheegay aniga qoraan iyo ari laakiin nin wax akhriyaan ahay ari hadda qoraa tahay oo buuggan hadda waxa waaye qalinkaaga cadayntiisaan haynaa ma sha Allah marka akhrintu waa hiwaayada koowaad waaye dhageysiga suugaanta waa igu xigtaa dadka yani in dhageysatid waxa ay hayaan iyo aragnimada waxa la yiraahdaa informal education waa laga faa'iidaa qofka bani aadamka ah oo wax haduu ka yar haduu ka weyn wax buu xambaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay waa laga dhalaaliyaa waa laga qaadaa macnaha waa markasta waxay ku habboon tahay inaad ka qaadid aad ka aruurisid taas yani idan igu wacan oo inaan wax badan dadka dhageysto. caqabado inta aad buuggan qoraysay oo aad isleedahay qalileyda cusub inay ka faa'iideysan karaan maxaa caqabadaha la kulantay hadday tahay dhinaca qoridda haaneedinta iyo diyaarinta buuggaba guud ahaan? xaqiiqatan Sir Cabdifataax waxaan qabaa wax qorid horta ma sahlana wax sahlan maaha mana aha wax oo isla markiiba yani lagu dhiiri karo waxay u baahan tahay fikir waxay u baahan tahay taxliilin badan inaad analysis waxaan ma qori kartaa waxaan u heli kartaa references oo meel aad ka soo dheegato ama aad ka soo yani xambaarsato ma heli kartaa aad ka soo qaadato macna ka soo qaalin raac ma heli kartaa waxyaabahaas oo dhan waxay dhalinayaan inaad yani aad wax raadisid. caqabadaha waxaa ka mid ah waxa waaye qofka bani aadamka markuu wax qoraayo waxa uu qoraayo waxay u tegi doonaan bulshadaas oo aqrin doonta marka waxaa la yiraahdaa waxa qoraysa ha noqdaan wax bani aadamka anfacaya wax bani aadamka meel u buuxinaya wax bani aadamka oo ka faa'iidi karo noloshiisa xataa ku dabaqi karo taas aad u faa'iido badan aniga aan qaba aragti ahaan waana la yiraahdaa qofka insaanka ah markuu wax sameeynayo حديث النبي وهو عليه الصلاة والسلام وإذا عملت عمل فاتقنوه هذا عمل سمينيس عملك هلا سوق واحد سمينيس إنها سوق تدافع يعني وآذن يعني عيار كدهن مرك إنه برشاد لهذا يسا بوق مركز قولي شد أو سميسد برشاد ودي بيسا برشاد بأخرين يسا
aan bulshada markaa waxay kugu soo celinaysaa yani kugu soo celin ku leedahay waxaas ka samee yani hadda waxaan ogahay صراحة waxaa laga sameeyay gorfayn niman odayaal oo cabqariina gorfayn ka sameeyay way la yaabeen way dheen buugan si fiican aad u qortay iyo gorfayn hadda waan hayaa milkii ku jirtaa oo rag badan ay soo direen waxaan rabaa hadda mar baan ku balansanaa falk shopping wiiga dambe hada dambe ayaan bulshada falk shopping la kulmayna anigii macallin Yusuf iyo Cabdiqani oo aan la wadaagi doono oo waxyaabaha aan qorno oo dhan iyo seminar aan la wadaagi doono saddex qora ahaanaad markaa bandhig ku sameyn doona insha Allah taala marka yani in wax la qoro ma sahlan waqti caqabado badan jiro waqtiga kamida waxa kamida yani howlaad haysataa banaadam baa tahay oo risqaad raadinaysaa waxa kugu xiriira waxa kamida yani dadka qaarkood waxa waaye negative way ku leeyihiin waxa ma sameeyeen sida waxa ku siinaa laakiin negative looma joogso waa banaadamku wax isugu jiraan dad salbi dad ijaabiya من نيجاتيف إنين بوزيتيف يسوق جرا كنيجاتيف كا ولا دقيستا ولا يوجد بعدنا حاجة الرع بالشدة وإحنا نظيفة وأنفعي أي الله كنا وقتيدا أد wax qortid maadaama qofka waad shaqaysaa macallina tahay noloshii qoyska iyo daruufihii kale caadiga ahaa kugu xiran qalinkana waad soo qaadatay oo bulshada maanta waxna u soo gudbisay hawlo kalena waa wada buugaag kala wada marka waqtiyada aad wax qortid waqtigee wax qortaa waxa ugu fiican horta waqtiyada wax la qoro subax hore oo fiican markuu salaad subax dukad markuu quraanka akhriyo kadib inuu wax qoro mararka qaarkood waxaa dhacda adigoo hurda kugu soo dhacay inaad soo kacay meel ku qortid raba waxa saysan kaaga dhumin hadhow wax fiican qalbigaada ku soo dhacaya adoo hurday mesela riyoon wax qalbi wax ku soo dhacda soo toosid aad meel ku qortid hadhow waad widi kartaa waqtiyada ugu habboon waxa waaye dhamaystirka sheekada dhamaystirka sheekada hadhow soo dhamaystiraysaa waqtiyada ugu habboon waa subaxii hore aroortii hore waa ugu habboon tahay fasaxada markii guriga laga kala maqan yahay oo kaligaa tahay way habboon tahay qofka kaliis uu yahay waxba maskaxdiisa ku soo ducaya ama waxba soo xasuusanaya markaad joogtid meel degaan aad u fiican oo qurux badan markaad joogtid waxa arkaysaa laano fiiri ustaad Cabdifataax qofku wax sawira qofku wax qora qofku wax uriya qofka dadku wax u soo teebay sida wariyaasha waxay fiirsadaan fursaday fiiriyaan fursadahaas marka ay la falgalaan ay macnaa ay ku soo gudbiyaan waxa ay qabaan marka taas ay ku fiican tahay marka aroorta fiican iyo waqtiyada guriga laga kala maqayo kaliga aad tahay oo fasaxad ku jirto kala aad u fiican waa in jawiga uu deganaado jawiga uu degan yahay waqti intee la egaad markii kuugu badan ee aad u fariisatid inaad hawl dhex ku joogtay aad ka soo miro dhalisid ama aad qayb kamid ah iska dhameeysid meeqa saaca oo kala fariisataa markaad طبعا ورنتا وسؤال باش ku jirto waaye waxa jira wax la yiraahdo ama waxa la yiraahdaa focus ama toos ina u aadid focus yani waxa qabanaysid ina siisid waqti mesela sheekooyinka qaarkood marka aan qorayay alxamdulillah fadligiisa waaye qaar waxay ugu qaadatay inaan bedelo qoro on u diro qoro 4 saacadood 5 saacadood waa qaadanaysa mararka qaar 2 sheek 3 sheek inaad qortid marmarka qaarkood hal sheek 4 saac kugu qaadanaysa inaad sawirisid sheekadan ma anfacay dadka u dir saaxiibada horta soo akhriyaan soo celiyaan maxaa laga bedeli karaa maxaa yani ay noqon kartaa sheekadan dadka maxay tusaysaa bulshada maxay tusaysaa yani waxyaabahaas jiro مثلا معناها صاحبتي halkan ila joogo kaleete Master Gentle iyo Tolman aan la wadaag sheekooyin waxa jira hada buugan 200 sheeko waa dhamaayeen sheekooyin 100 la iga tuuray walakin 100 kaas la tuuray waxa badan ku jira oo xigmada badan marka qaabkan haduu qornaa iyo sheeko kala qornaa oo qaab kala laakiin lama tuurinay waxa waaye buug kala lagu tuuray meel buug kala lagu tuuray meel la dhigay waxa liiri ma yahay hada 100 kana ogolnaa liiri marka dhowr iyo konton sheeko camalna waa iga reebeen nimankii halkan ku qoran nimanka odayaasha oo runtii aad aan ugu mahadinayo runtii oo rag igala shaqeeyay oo macallin Sultan Ibrahim Garin oo ku jiro oo Cabdiqani oo ku jiro macallin Yusuf oo ku jiro Baabi Ciise oo ku jiro Ustaad Ahmed Sabri oo ku jiro iyo Ali Khayr Maxamed Nuur oo London joogo oo ninkan Ali Khayr waa nin tafatiraad u weyn oo Dr. Kabjis iyo oo wax la tafatira uu qoraa yani waa u diray buug markuu akhriyo wala yaabo yiri waxaad sameysoo yiri buugan gacantaada uu ka baxay dhaxal umadeed uu noqonayo umadaas kale uu yiri daahir waxaan ka ballan qaadaa yiri aagan dhigaya Djibouti waa geynaa Jigjigana waa geynaynaa Muqdisho waa geynaa Hargeysa waa geynaynaa waa buug aad u qiimo badan oo runtii waa aad baa loo taxliiliyo yiri macnaha waxa wala turxaan biyo yiri
yani sheekooyinka negativeka ma la gelin, sheekooyin ummadda anfacaya la gelin. sheekooyinka oo akhyaartaasi aqoon-yahanka aan anigu wada aqaana badankood ay soo taxliiliyeen, sheekadeebaa kugu soo noqnoqotay oo iyagana si gaar ah aad is leedahay way u taabatay? 100 sheeko oo wada xul ah, wada xigmado xambaarsan, 100kaa sheeka ku jirto qofba si gaar ah ama daqiiqadaha sakanada qosolka ugu badnaa ama si gaara u taabatay ma jirtaa? صراحة waa jiraan. maalintan hadda buugan dhameeyey rag qaarkood aan u sheegay intuu soo bixin, rag odayaal halkan jooga, nin odayo saaxiibaan nahay, hadda marraba magaciisa aan sheego, wuxuu yiri ma ku soo dirtay sheekadeeda 3 maan laawe waa ku jirtaa haniri 3 maan laawe waa ku jirtaa haniri. markaasuu yiri hadda ka hor dhowr mar aad noo sheegtay sheekadaas, waxaa siri macnooyin badan ay samaynaysaa sheekada macnaha oo 3 maan laawe. laakiin sheekooyin waxaa ku jira oo aniga yani aan markaan akhriyo mararka qaarkood aan la yaabay oo aan dib u akhriyo. macnaha sheekooyin waxaa kamid ah 4 sanduuq iyo 4 wiila kamid ah sheeko la yiraahdo. sheekada waxaa kamid ah yani waxaa kamid ah oo Soomaalida taabanaysa oo la yiraahdo yani degaankii Soomaaliyeed sheeko la yiraahdo. waa nooga soo dhex xuli doontaa sheeko iyo labo oo aad nooga sheekaysidba marka la akhrisanayana si gaar ah looga boganaya, marka laga sheekeeyo oo dareenka iyo xigmadda aad ku dartidna way kasii macallinna waa tahay. marka insha Allah ibtikaraankeena adiga sheekooyinka ku jiro haddii 100kaas sheeko lagu yiraahdo macallin Daahirow hal sheeko 100kaas sheeko kala soo baxa, sheekadee waa kala soo bixi lahayd? سؤال adag waay, waa su'aasha soo adag tahay. waxaan kala soo horta adag tahay waayo 100 sheeko hal sheeko kala soo dhaxbax waa sheeko aad u adag waay. laakiin haddii aan yani aniga iyo daawadayaasha waa soo fududaynayna hal sheeko hadda noo xul. sheeko oo inta badan aniga aan madasha ka sheego Soomaalida qosaysa sheegi karaa, laakiin ma sheekadaas sheekooyinka aan ugu jeclaa sheeko kale laakiin Soomaalida qosaysa taasaan sheegi karaa. marka sheekadaas aad noo sheegaysaa, waad noo sheegaysaa sheekadaas, waa u soo noqonaynaa, waa ku soo xiranaynaa barnaamijka. waxaad tiri subaxii salaada subax ayaad jeceshahay markaad qur-aanka akhrisid uu jawigana degan yahay. ma sheekooyin kalaad akhrisaa oo ku siiya garabdaar ka heshaa iyo in aad fikir ka qaadatid? ma jirtaa sheeko adiga un kugu soo dhacday oo aad xaaladda nolosha bani aadamka aad ka samaysay? way jirtaa, laakiin halkan laguma qorin. sheekooyinka laga rabay ka mid tahay oo banaadamka hadda wadciga hadda jira aan ka sameeyey oo macnaha waxaa la yidhahdaa waa sheeko ku saabsan qoyska Soomaaliyeed oo casrigan hadda aan nool nahay qusaynaysa. qurbaha mise gudaha Soomaaliya oo dhan meel kasta qurba ahaw dunida ahaw technology-ga maanta dhibka uu keenay waaye macnaha oo la yiraahdo kalamaan. macnaha guriga lagu wada nool yahay, gurigii waxaa degan reerkii, aabihii iyo hooyadii iyo 4 caruur ama 3 caruur degan, 4 caruur degan. tusaale aabihii wuxuu ku mashquulsan yahay internetka Soomaaliya ku mashquulsan yahay, gabadhii waxay ku mashquulsan tahay Snapchat, wiilkii wuxuu ku yaraa wuxuu ku mashquulsan yahay TikTok, wiilkii wuxuu ku mashquulsan yahay sportiga, wiilkii wuxuu ku mashquulsan yahay maxaan ku raahdaa YouTube. marka gurigii war la suma hayo waan la wada degan yahay, qoys wada mashquulsan waayo. marka qoys kala maana waa waana wada jooga. haddaad u yeertid ruux kamid ah dhagax uu jir kuma maqlayo, war cabdi fataataatira war heblaaya daatira war heblo daatira kuma maqlayo. waayo dhibaatada technology baa markuu wuxuu keenay qoyskii dhibku u keenay, laakiin technology si kale looga faa'iideysan karaa. sax. marka taa marka idana waa soo qaaday idoo sheeko aan aniga aan la laakiin kuma jirto 100 sheeko. laakiin kuma jirto 100 sheeko, laakiin waa alif, laakiin sheekooyinka dambe imaan doonta haddii la karaad noqdo. muddo intee la eg ayuu buuggan xal iyo xigmad uu kugu qaatay marka aad go'aansatay inaad buug ahaan u soo saartid iyo maalintii uu gacantaada soo galay isagoo dhammaystiran bulshadana aad u gudbisay? waxay ahayd 2017 bishii May ayaan bilaabay oo 16 abtiga baa ila soo hadlay, wuxuu yiri buugaas iska diyaarinayo, khayr Allah ku siiyo, ciyaalkan uu dhaaf, waxa waaye faa'iido u leeyahay, dadka dhan faa'iido u noqonaa. marka sidaasaan macnaha aan Allahumma musta'an aan ku diyaariyay 17 May 2017 May 2017 bishii May ilaa November 27 soo baxay buugga oo lagu soo bandhigay ugu horeeyay Stockholm
magaalada Stockholm maalintaas ayuu gacanteyda ka baxay laakiin intii halaas waxaan ku wadnay aqrin iyo taxliilin ragga odayaasha buugga dhabarkiisa ku qoran ayaa macnaha oo kabarka buugga ama leeyahay ayaa macnaha igala qayb qaato aad iyo aad igala qayb qaatay iyo yani kabarkan oo aad u qurux jildigan aad u qurux badan oo yaa sawiray jildiga inaan ku weydiiyay ahayd sababta in sheekada waa soo aruurisay waa la qoray laakiin in buug ahaan loo haaneediyo oo qaabeynta macala jildiga sidaas loo qurxiyo adima wuxuu dhan wada sameeyay mise maya ma sha Allah waxa jildiga wala Abdifataax jildiga markaad fiirisid wuxuu ka kooban yahay hadaad fiirisid midabka meesha ku yaalo oo maroonka يعني فلا قرحة laga wada qorraxda waay kan waxa laga wada nolosha bani aadamka marna kore jirta marna hoos jirta marna kore jirta maalin bani aadamka meel uu joogaa maalin marxad uu joogaa aakhirka waa tagaya marka ay matalaysaa ma jeedaa marka buugan wuxuu ka kooban yahay yani sheekooyinkan waxay ku idil yihiin intaan ku kooban yihiin waa sheekooyin diiniya sheekooyin madadaala oo qosla ku jiro oo qosla sheekooyin dhaqan ku jiro sheekooyin murtiya ku jiro af iyo garsoor buugan luqad Soomaaliyeed ma u hiiliyay dadka Soomaaliyeed ma u hiiliyay يعني قفكي أقرياء وحول من نقولنا قف عمري 7 سنة كوين أيو نقولنا حقيقة ضدنا أقرياء حتى يلبنا على صوت البضم يعني قفكي أقرياء مركا وحواي يعني بقول شيء كواي قارو هيسوي جديد إلا ترجمة وقتي قاعدين إلا ترجمة إلا ترجمة وقت بدري قاعدين مركا الله يفكر إن شاء الله مدة يكوكو قادتي 5 سنة يكوكو قادتي بوغان ديارنتيس 5 سنوات 5 سنة وبوغ aad looga soo shaqeeyay waqtigu u baahnaana la geliyay labada buug ee kale soo socdo ma wax soo dhamaaday jira iyagana ma xigmada iyo sheekooyin wax ma ka ogaan karnaa mise waa sugeynaa ilaa ka soo baxaan kaas waa sugeynaa insha Allah soo baxaya laakiin buuga aad fiican mid aad u fiican yahay midna Soomaalida dalkan uu ka hadlaya arinta labaad oo rabno inaad naga aqbashid inaad hal iyo laba sheeko kale aad nooga doortid oo noo duubtid cod ahaan aad nala wadaagtid hadday suurtagal tahay halkan ka akhriyaa soo ha inaad ama nooga akhrisid ama aad ka sheekaysid waxaan loo doorayaa sheeko la yiraahdo oo habeen dhexdaas ragga odayaasha hal sheeko mise laba sheeko insha Allah labada sheeko maxay kala yihiin labada sheeko waxay kala yihiin mid waxa waaye wiil guurdoon ah abtiga iga codsaday isagana magaceeda way sheekada magaceeda wiil guurdoon la yiraahdo ta kalena waxa la yiraahdaa sheekada kale waxa la yiraahdaa waa sheeko cajiib iyadana waa gabar oo iyadana hooyadeed kala talinayso guurka 3 nin ay kala talinaysaa ay la kulantay maasha labadaas baad nooga sheekeynaysaa marka waxaan barnaamijka qaybtan hore si gaar ayaan labada sheeko u sii deynaynaa marka barnaamijka qaybtan hore waxaan ku soo gabagabeynayaa intaas wax aniga iyo daawadayaashaba aad ugu dambeyntii noogu soo gunaanudaysid oo nagula dardaarmaysid waxa kaliya aan ku dardaarmay waxa waaye in dhaqanka Soomaaliga aad loo ilaaliyo dhaqankii Soomaaliga ahay wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo generation ka soo baxo generation technology oo wixii waa soo koobayaan marka dhaqanka Soomaaliga in la ururiyo ayaa idin kula dardaarmaya waxna la aqriyo ummadana wax wanaagsan loo sheego aad iyo aad u mahadsan tahay Sheekh Daahir inaad naga ogolaatay waraysiga iyo sheekooyinka xikmada leh oo aad nala wadaagtay ma sha Allah dhimaastaan insha Allah taala ma kala kulmi doonay marar badan hadii Allah idoo insha Allah taala aad ma astacbid assalamu alaykum wa alaykum assalam wa barakatuh daawadayaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin la socodka aad la socotaan barnaamijka weydii qoraaga iyo guud ahaanba warbaahinta deegaan codka geeska oo anigoo ah Cabdifataax Baana Caymuun oo idinkaga tagaya kulanti dambe oo xiiso leh iyo barnaamij kale oo kan ka sii xiiso badan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.